بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمة لو ملكستو نقد داونيسان وبرنامجك فلنقينتا دعدوينكا oo aan alaaba idinku soo gudbino arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba waan uga faaloonaa barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa arrimihii ugu dambeeyay ka taagnaa wadanka Soomaaliya gaar ahaan ka bixitaankii al-shabaab ee magaalada Muqdisho iyo hadaladii kala duwanaa ee ay dowladda ku meel gaarka ay iswadaarsanayeen dhinaca kalena waxaanu ka eegi doonaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegayso si loo sugo ammaanka guud ee gargaarka la keenayo qaybo kamid ah wadanka Soomaaliya loo baahan yahay in ammaanka uu noqdo mid sugan waxa kale oo walaac laga muujinayaa iyadoo al-shabaab qaybo badan ay ka baxday haddana xaaladda dadka barakacayaasha si loo gaarsiin karo raashinka waxa kale oo maanta ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo la kulmay haweeneyda ama sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay gaar ahaan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa wuxuu u qaabilsan yahay dhinaca arrimaha gargaarka haddaba waxa ay ka wada hadleen oo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in loo baahan yahay in la helo ciidamo suga ammaanka dadka gurmadka waxyaabaha loo fidinayo isla markaana ka howlgala xerooyinka dadka ay kusoo barakaceen taasoo ay muujinaysa ayay yiraahdeen in weli ammaanka magaalada Muqdisho uu yahay mid aan la isku haleyn kareynin al-shabaabna waxay sheegtay inay dagaalka gurilaha bilaabi doonto iyadoo ka tusaale qaadanaysa wadamada Afghanistan iyo Iraq sida ay iminka dagaaladooda uga socdaan waxa barnaamijka igala qayb qaadanaya xildhibaan xasan macalin oo hore u ahaan jiray wasiiru dowlihii waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya xildhibaan xasan macalin oo ahaa wasiiru dowlihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya isla markaana xasan macalin waxaad si weyn ugu taqaanaan oo garabkayga midig fadhiya waxaad si weyn ugu taqaanaan in inta badan u badan yahay xafiiska madaxweynaha waxaana dadku inta badan ay ku xagliyaan inuu gacan saar dhow la leeyahay xildhibaan xasan macalin madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxa kale oo ila fadhiya oo sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanaya Cumar Suleymaan Cali oo Shalaqo loo yaqaano waxa weeyaan siyaasi runtii lagu yaqaano dhinaca ururadiimeedyada ka dhisan wadanka Soomaaliya oo runtii uu ka mid ahaan jiray isbahaysigii Casmara sidoo kalena waxa uu horay la taliye ugu ahaa xasan daahir awees oo isagu ahaa gudoomiyaha xisbiga islaam inta badanna waxa uu eegaa arrimaha kala duwan gaar ahaan dhinaca ururadiimeedyada haddaba aanu ku bilaawno marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa xildhibaan xasan macalin xildhibaan maxaad u malaynaysaa al-shabaab sababta keentay inay ka baxdo magaalada Muqdisho ma awood baa keentay ma xeelada iyagu sameeyaan baa keentay horta maxaad is leedahay marka ugu horeysa bismillahi rahmaani rahiim waan salaamayaa TV-ga Somali Channel marka labaad dhamaantii waa idin mahad celinayaa iyo saaxiibkay walaalkay Cumar Suleymaan runtii su-aasha ku saabsan al-shabaab iyo Muqdisho asbaabaha ay uga baxeen waxaan u malaynayaa marka ugu horeysa yani waxay ila tahay waa guul horta ummadda Soomaaliya soo hoyatay waa mid labaade garabkooda baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baxay dhibaatadii weyneed ummadda ay ku hayeen dhibaatadaas oo isugu jirtay mid diimeed iyo mid daleed iyo mid mataqaana dhaqameed intaba marka kulley culays xagga militariga ah ayaa soo fuulay sida iyaga laftooda afkooda ay kaga dhawaajiyeen runtii waan ka xumahay in ay u khuduucaan kaliya oo ay maqlaan awoodda militariga waxay ahayd inay maqlaan baaqyadii iyo ku saabsanaa nabadda iyo walaalnimada iyo mataqaana wada heshiinta inay maqlaan ayaa fiicnayd haddana sidoo kaleeto waxaan is leeyahay inta ku hartay oo weli shaqadaas ay ku jiraan iyo meelaha goobaha ay joogaan inay dhibka ka daayaan oo ay dalka u ogolaadaan inay dowlad ummadoo dhan kala gaarta oo dalka dhan wax u qabata inay dalka u ogolaadaan ayagu dalka dowlad uma ahan cidna uma aysan xil saaranin sidaa darteed si dhibaatooyinka haddaad ka hadashay oo faraha badan leh
oo musiibooyinkaas ay ka mid yihiin sidii wax looga qaban lahaa. waa tahay aad baad u mahadsan tahay cumar suleymaan cali, maxaad aaminsan tahay in al-shabaab ay uga baxeen magaalada muqdisho? bismi illahi raxmaan raxiim. sida marka ugu horeyso horta bahda telefishanka Somali Channel aad bay u mahadsan yihiin sida dhexdhexaadka ee quruxda badan ee ay arrimaha Soomaaliya uga hadlaan, waana ku mahadinaynaa. iyo raggii hadda halkan jaaniskan siiyey baa ku mahad celinaynaa. midda kale anigu halkii xasan fikirka uu qabo fikir ka duwan baan qabaa, laakiin dee laba qof oo iska soo horjeeda waxaanu rajaynayaa dadka ayaana xukumi doona kayaga saxsan. aniga ma qabo shabaab taagdarro inay uga baxday. sidaad ogtihiin habeenkii ay talada gaareen waxay ku shireen ceelasha biyaha maalinimadii go-aanna waxay ku gaareen inay ka baxaan dhufaysyada. may ku gaarin go-aan inay ka baxaan magaalooyinka, laakiin waxay go-aan ku gaareen inay ka baxaan dhufaysyada. habeenkaa laftiisa ay ka baxayeen dhufaysyada ay qaateen dagaalka gorilla warfarena waxay qaadeen dagaalkii u horreeyay gorilla warfare. si weyn bayna u damage u gaarsiiyeen dhul badan oo ay soo galeenna uga saareen ciidamadii huwanta ahayd ee gaalada iyo taageerayaashadii Soomaaliyeed ee la socday. waxaan u arkaa waxa weeyaan jihaadku sidaad ogtihiin baa gebigiisuba wuxuu leeyahay tactical waa uga bixi kartaa, wax u samayn kartaa, laakiin lagama tegi karo. marka waxaan u arkaa inayan ahayn taagdarro la soo diristay, laakiin ay tahay inay bedeleen tacticadii. midda kale xasan waxaa walaalkay uu sheegay maaragtay inay ummadda guuli u soo hoyatay. anigu ma aan garanayo guusha u soo hoyatay sababtoo maxay meeshan laba arrimood ba iska soo jeeda. dowlad nima sheeganaya oo ayna ummadda Soomaaliyeed dhisanin, dooranin, kalsoonina ka qabin, number 1. iyo nimankan dhalinyarada liyaa dagaalamaya. nimankan dowladda sheeganaya waad ogtihiin meel baa laga xukumaa, amarna way qaataan, amar ay leeyihiin ma jirto. hadda waad ogtihiin shirkii Kampala oo ay aad u cambaareeyeen oo iyaga baarlamaanka iyo dowladnimadooda meel uga dhax ku ahayd oo ay lahaayeen ma ogolin waxa la ogolaada haddii kale meesha ku kala tegaysaa si ay ku ogolaadeen. marka midda ka xun waxaasoo dhan waxa weeye ma wataan ummaddu ummad islaama waay, dowladda iyo dadkeedu ma watan shariica islaama. xasan cumar faahfaahintaas oo geli doonaa oo dheer, laakiin hadda su-aashu waxay ahayd al-shabaab ka bixitaankeeda ma awood baa keentay mise iyadaa maaragtay iskeed uga baxday? awoodba keenin, waxaa keentay tacticadii ay bedeleen, wayna ku qaldanaayeen markii horeba inay galaan difaac. waa tahay xasan macalin, haddii marka al-shabaab runtii aad sheegtay inay ka baxeen magaalada muqdisho, awood ay u babacdhig waayeen oo militarina ay uga baxeen magaalada muqdisho, weli dowladdu gacanta kuma hayso. maxaa hortaagan inay dhaqaaqaan oo haddiiba al-shabaab tagtay inay goobihii kala duwanaa oo ammaankii magaalada muqdisho o dhan ay gacanta ku dhigaan? horta marka ugu horeysa anigu tactician military ma ahi. anigu waxaan ahay siyaasi oo dowrka siyaasaddan ka warhaya, laakiin inta aan la socday sida ay dhaqdhaqaaqa ciidankeena dowladda waxaa isla socday dhismaha ciidanka oo xoogeysanay iyo waxaa isla socday awoodda meesha ay gaari karaan. marka waxaa laga yaabaa in dadku ay u fakerayaan qaabkii hore oo maaragtay yacni colaadaha ama dagaalada uga dhici jireen Soomaaliya oo ahayd qola hadday meel banayso qolada kale inay mataqaanaa ku yaacdo ayaa laga yaabaa. laakiin waxaa laga yaabaa qaabkani inuu ka duwan yahay oo loogu talagalay awoodda meeshaas aad u diyaarisay iyo ciidanka si aad ugu abaabushay inaad mataqaanaa aad isla ekaysiisid oo aadan mataqaanaa aysan dib ugu dhicin wixii hore dhici jiray oo ahaa mar walba dib u ruqaanshadsada. marka lama rabo in mataqaanaa laba tallaabo inta hore loo qaado 3 tallaabo 4 tallaabo dib loo qaado lama rabo. marka saas waa tahay, laakiin hadda ra-iisul wasaaraha wakaaladda wararka Reuters waxaan arkaynay ra-iisul wasaaraha oo macnaha sheegay in
loo baahan yahay ciidan si gaara u suga ammaanka magaalada muqdisho oo gaar ahaan xeryaha dadku kusoo barakaceen iyo qeybo kale oo intii al-shabaab ee banaysay weliba markaas wuxuu la kulmay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca gargaarka degdega ayuu la kulmay marka yaa sugaya waayo ciidamada loo yeerayo oo ay la doonayo in goobihii al-shabaab ay ka baxday inay sugaan aniga waxay ila tahay kolley waxay ku xiran tahay qaabka aad u fahamteen ama qofka markaas dhegeysanaya u fahmay laakiin aniga ma aanan dhegeysanin hadalka ra-iisul wasaaraha laakiin waxaan u qaadan karaa maadaama aan aqaano qaabka dowladda u shaqaynaysay waxaan u qaadan karaa ciidan khaas oo ciidanka Soomaaliya laga dhex saaray oo si gaar u tababaran oo hawl gaar ah loo yeelayo oo ku saabsan kaliya inuu ilaaliyo meelaha si khaas ah u ilaaliyo laakiin uma malaynayo ciidamo khaas oo dibadda laga keenay oo dalal dibadda looga yeertay inay yihiin u malayn maayo inkastoo aan saan kuu sheegay aanan dhegeysanin hadalkiisii waa tahay marka dadka soo barakacay ee ku sugan magaalada muqdisho dowladda iyo ciidamadeedu dhibaato badan bay u geysteen qaramada midoobena arrintaasi walaac ka muujisay marka dadku haddii ba aad tiri al-shabaab dhibay ku hayeen macnaha sidee dadku dhibka uga badbaadi karaan bay kula tahay horta marka ugu horeysa dhib oo dhan waa xaaraan ama adiga kaa yimaado ama keyrkaa ka yimaado waxaana la rabaa wixii markaas jira oo dhib ah in la hubiyo inuu mataqaanaa ka yimid adiga xaggaaga ama dhinaca uu ka yimid si sax ah loo sheego waana runoo meel haddii ay dhibaatadan oo kale Soomaaliya ka jirta ay ka jirto oo colaadaha iyo dagaalada ay ka jiraan baaxadda intaas la eg leh nasiib darro waxa weeye dhibaato way soo gaaraysaa dadka shacabka maalinkii 20 sano ka hor ilaa maanta aan taaganahay laakiin su'aashu waxa weeye in mar walba la isku dayo in la yareeyo oo dhibaatadana waxa yareey kara oo ka shaqeyn kara aniga mabda'iyan la rabaa in laga hadlee mabda'iyan waxa iskale shaqadaas shaqo dawladeed waa shaqo kooxeed ma ma garatay waxa weeye meesha Soomaaliya waxa mar walba imaanayay koox beeleed oo mataqaanaa siyaasadaysan haddana waxaa yimid kooxo diimeed oo siyaasadaysan marka labaduba shaqo aysan lahayn ayay ku jiraan waxaa la rabaa marka shaqadaas amniga dadka in la sugo dhibaatada laga dul qaado horumar la gaarsiiyo waxay tahay waajibka dawladeed waa tahay cumar Suleymaan waxaan la soconaa markii al-shabaab ay ka baxday qaybo kamid ah ama awood ha uga baxdo ama xeelad ha uga baxdo markii ay ka baxday magaalada muqdisho qaybo kamid ah waxaa la arkay dadkii oo guryahoodii tagaya kusoo laabanaya suuqa bakaaraha ganacsigii baa dib uga furmaya korontadii baa u daarmaysa muxuu ahaa dadku marka waxaad moodaa ootin ka baxday in ay u arkaan markii al-shabaab ay meesha ka baxday marka sidaas ma aragta adigu uma arko haye waxaan ugu arkin horta practically markaan eegno meesha dowladda qoladan sheeganaysa ay hayso meel nabadi taalla maaha dadka shacbiga ahee deganina waa lagu dhibaateeyaa ciidamada dowladda sheeganayaa ku dhibaateeya meesha ay dhalinyaradu gacanta ku haysona waxaa adduunka dhami ogyahay inay 100% nabad ay tahay marka dadkan laleeyahay markay shabaabtii baxeen bay istacaba tunteen ama kuwa ooyay ahaayeen oo la ognayo baan hadda ku inoo imanayaan anigu ma qabo marka meel nabad tiilay meelaan nabadii ooyay ka qaado Cumar Suleymaan horta waxaa cad in dadku ay ka barakaceen goobihii ay al-shabaab ka talinaysay oo runtii marka la fiiriyo muuqaalka wariyaasha ay naga soo dirayaan magaalada muqdisho meelo badan oo ayay macnaha ka baxeen haddana dadku waxay usii shubmayeen oo ay usii socdeen goobaha dowladdu ka taliso marka ma la dhihi karaa macaamilka dadka shacabka iyo al-shabaab baa meesha aada u xumaa horta way dhici karaan organizationkan al-shabaab la yihahda inuu gifaf sameeyo waa organization dad ah oo bini aadam ah haye laakiin waxa iyagu ay sameynayaan for example haddii ay yihiin urur islaama oo ay 10% kaga dhaqmayeen shareecada 90 kale ay ku dhaqmayeen
waxaa ka xun kuwa aan zeroba ku dhaqmin gebigeedaba oo kasii xumaan badan oo laga masiin karo. laakiin waxa weeyaan shabaab kamaanay bixin dhufaysadii kamaanay bixin migaadii ee dhufaysadii ka baxday. hadda dagaalkan gurile ah oo ay sameynayaan yuu dan u yahay dadkii soo barakacay oo hadda ceelashii kasoo laabanaya oo magaalada muqdisho soo degaya in maaragtay madaafiic mar kale lagu garaaco soo kama habboona in al-shabaab ay arrin kale haddii xataa taatikadii militariga ay awood u weysay soo kama fiicna inay nooc qaab kala sameyso. aniga waxaan xasanow marka aan intaan xogogaalka ka ahay waxaa laga yaabaa 2 different channels channelo badan baa jira warka ku yimaadaan. inta anigu xogogaalka ka ahay maba u malaynaya in hadda lagu noqdo muqdisho mooyaane la iska dhaafee xataa haddii ay bis dhacdo oo nabad dhacdo oo dowlad ummaddu samaysatay meesha timaado oo viable oo la aaminsan yahay xataa in xamar lagu noqonayo u malayn maayo. maxaa dhacay? dee xamar waa laga guuriyo ceesha biyaha la tegey oo xamar hadda waa ceesha biyaha meeshana guri fayowba oo taagan oo loo noqdaaba ma jiro. waa tahay marka waxaa anigu arkaa dicaayado fara badan oo miidiyaha qaarkood uu faafiyo oo u tuso in meeshii barwaaqaysan tahay iyo nimanka dowladda sheeganaya oo voice government codkeeda ku hadlaya oo meel walba la taagan waa barwaaqaysanay waa guulaysanay laakiin really aan wax guuli jirin. sababtu waa maxay? way dhici kartaa shabaabtu inay sii daciifaan inay sii baxaan inay sii baaba'aan waayo markay yihiin gorilla ay yihiin meel ma haystaan meel kasta ka dagaalami karaan. hadda ayama habeen saddexaad habeen afraad ma aqaan 5 ilaa 6 meelood bay weerar ku qaadeen oo xamar gudaheeda ah oo xoogaa bay haysteen waa ka baxeen markiiba inta waxay dhibaato geystaan bay ka baxayaan. waa tahay xasan dagaalka hadda ay bilaabeen kama darajo hooseeyo kii ay markii hore ku jireen waaba ka darajo sareeya oo waa tahay xasan macalin waxaan ognahay inaad adigu aad ugu dhowdahay madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo runtii inta badan lagugu tiriyo laguna xanto inaad tahay ninka adiga iyo rag kale dadka siyaasadda madaxweynaha wax badan ama ka bedela ama ku kordhiya. al-shabaab macnaha way badan tahay ayaantaana waxaa la oranaya xoogaha fikirkoodu waa kala duwan yahay. dowladdu miyay awoodi weysay inay al-shabaab xiriir la sameyso? horta marka ugu horeysa waxaan ku noqonaa midda aad ka hadasho ahayd madaxweynaha wax badan ka bedeshaan bini aadanka dhana horta istacfiiriya oo ra'yi isku reeba waana la wada nool yahay. laakiin madaxweynuhu waxa weeye isaga u madax bannaan go-aanadiisa talada dadkana waa u furanto waa dhegeystaa. mid waa midda ku saabsan ma lala gaaray nimankan al-shabaab la yidhaahdo maxaa loo gaari waayo gacanta loogu taagi waayey. waxaan u malaynaha inay muddo badan ba jirtay in lala gaara gacanta oo lala hadlo liannahu waxaa ka fiican in dagaal iyo xabad lagu dhameeyo waxaa ka fiican in wada hadal lagu dhameeyo. marka dadaalkaas waa jiray welina waa socdaa. haddana xukuumaddan maalintii ka baxeen magaalada say sheegeen ayaguba in maaragtay yani madaxda wadanka sida ra-iisul wasaare oo kaleeto uu u baaqay oo uu yiri mataqaana cafis baa laydin fidinayaa waa laydinla hadlayaa wax dhibaataa ma jiraan soo dhawaada. marka messagekaasi baaqaasu mar walba waa taagnaa waana laga wada laakiin hadee cafiskan la isu fidinayo waxaa tusaale usoo qaadanaya waxaa jirtay dowladdu inay dhowr mar ku baaqday inay cafis u fidinayso dadka ama al-shabaab ciidamadooda ahaa ama dadkii taageersanaa ama dadkii waxyeeleeyeen. tusaale ahaan waxaan arkayay wiil kamid a dhalinyaradii lugta ee gacanta laga jaray ee looga jaray maaragtay dhinaca al-shabaab looga jaray ayaa waxay soo maciinsadeen dhinaca dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya. waxaan daawaday waraysi lala yeeshay mid kamid oo Norway jooga Norway buu ku sugan yahay. wuxuu yiri markii al-shabaab lugta ee gacanta naga jirtay oo aan soo baxno dhinaca dowladda aan nimid dowladdiina wax maciina nama siinin waxayna markii hore iyadoo weliba wax badan naga duubtay laakiin markii dambe si walba nin walba jaantaan ragan oo ku nimid uu yiri magaalada Nairobi sidaasana la ku soo qaaday. marka dowladdu ciddii soo baxda iska dhaafa kuwii dhibaatooyinkooda u yimid ayayna wax u qabanin. marka sidee cafiskaasi loo rumaysanaya? cafiska horta waxa weeye sidiisa waa dembi aad gasho laga dhaafay. wiilashan aad ka hadashay
oo dhibaatada ay u geysteen ama ay dhaawaceen oo naafeeyeen nimanka al-shabaab 4 bay ahaayeen aan maraynaa xagga dowladda usoo ay mataqaanaa soo magan galeen intaan ka warqabo waa lasoo dhaweeyey intii awooddu markaas ahayd waa la gaarsiiyey laakiin waxaa laga yaabaa dee iyagu inay mataqaana rajaynayeen intaas in ka badan laakiin wax dhibaataana looma geysanin waa la dejiyey waa lasoo dhaweeyey waa la haayay dhoofkan xataa ay soo dhoofeen meelahan ay tageen laftigeeda waxaa ka qayb qaatay hay-ada badan oo wax caawiya oo mataqaana maadaama ay niman naafaa yihiin ayaa mataqaana laakiin dowladdu shaqo kuma lahayn dowladdu ayadaa ka shaqaysa inta aniga ka warqabo in hay-adahaas ay u tagaan waxaa isku xiray oo mataqaana wiilashan iyo mataqaana hay-adaha wax caawiya muslim iyo غayr muslimiin intaba waxaa isku xiray waxay ahayd dowladda ahayd waa tahay intaana teleefonada u gelin oo dadku ay ka qayb qaadan doonaan bal siday u arki karaan ka bixitaanka al-shabaab haddii ay awood uga baxday iyo haddii maaragtay ay al-shabaab muxuu aha taatikadeeda ay bedeshay iyo haddii al-shabaab ay dan u tahay joogitaankeedii muqdisho uu dan u ahaa dadka soomaaliyeed iyo haddii dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya qudheedu ay maaragtay maslaxad u tahay shacbigii oo ay isbedel uun keeni karto waxaan marka ku laabanayaa muxuu ahaa khilaafaadkan laga dhex sheegayo al-shabaab oo laleeyahay way iskhilaafeen oo way kala tageen waxaan maqlay sheekh xasan daahir aweys iyo rag badan inaysanba ka warqabinba muxuu ahaa markii al-shabaab ay ku dhawaaqayeen hadalkan ka bixitaanka marka miyuu jiraa khilaafaad baa is leedahay oo keeni kara in hoosu dhacan ku yimid al-shabaab horta bini aadamku waa iskhilaafaa khilaaf la-aanna ma noqon karaba bini aadamku laba qof oo isu timi oo iskhilaafayaan khilaaf waa dhex mari karaa markay muddo wada noolaadaan wada socdaan sida aan ka warqabo dabcan wuu jiraa khilaaf dhexdoodii wuu jiraa waxaana keenay khilaafaadka waxaa keenay iyaga oo manhajka ay alle ay doonayaan inay fuliyaan sidii alle ugu talagalay iyo rasuulkiisii si ka duwan u fulinaya taasaa khilaaf ka keentay waradhac waa jiraa khilaafku laakiin maaha khilaaf keenaya inay burburaan laakiin waa khilaaf doonaya in wax la saxo oo wixii khaldanaa laakiin ayagu waxay yidhahdaan diinta islaamka hadda shaacali dheere oo warbaahinta waraysi siinaya waxa uu leeyahay uu sheegay anagu haddii aan iskhilaafno manhajka islaamkaan u noqonaa marka haddiiba aysan manhajka islaamka si fiican ugu dhaqmin xaggee u laabtaan hadde qofku markuu leeyahay manhajkan ku dhaqmaa iyo markuu khaladka sameynayo isu qabaa inuu manhaj wuxuu isu qabaa inuu manhaj ku dhaqmaa laakiinse waxaa la yidhi maroodiyu takarta saara isagu ma arki maroodiyu kala arka dadka banaanka ka jooga oo inagu aan ka midka nahay baa arkaya inay nimankani khaldan yihiin sababtu waa maxay go back to the history magaalo islaam degan yahay bay ku duuloo qabsadeen anaga xukuna adduunkana ma dhicin weli taariikhda islaamka ma soo marin dowlad islaam ah in dad islaami ku duulayo anaga qabsanay oo kula mujaahidiin marnay kitaabka Allah rabna kor aan qad waxyaabo fara badan baa jiro aan wax badan ka hadlay oo shabaabtu khaladaadkooda waa leeyihiin laakiin waxaan u arkaa khaladaadka shabaabta hadday 10% kaga dhaqmayaan diinta islaamka waxa ka xun kuwa gaalada soo adeegsaday ee boqolkiiba boqol dadkii barakiciyay ee madaaficda ku burburiyay wadankii ee dalka baabi'iyay ee haddana aan zero kaga dhaqmin shariicada islaamka ka xun ummadda marka ummaddu inay wixii khayrka u ahaa khayrka yarka ah rasuulka xadiiskiisiiba ahaa kuwa xunxun baa idin xukumi doona markaasaa la malayna markaasuu may inta tukanayna dhaafa war 10% ayaan ku haynaa nimankan laakiin nimankan faajiriinta oo aan kitaabkiiba wadan ee kasoo tegay kitaabkii dadkiina laynaya waa ka daran aad baa maasantay waxaan diida dhowr qofood baan siin doonaa laakiin waxaa noo dhiman maanta madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya waxa uu soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegayo in go-aan degdega ama xeer degdega uu soo saaray kaasi oo wax looga qabanayo xaaladda ammaanka goobihii ay barneeyeen ururka al-shabaab iyo weliba dadka barakacyaasha meelaha ay yimaadeen isagoo sheegay in uu ka hor imaanayo in ciidamo beeleedyo ay tagaan goobaha ay al-shabaab ka baxeen sidoo kale qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay in warlordka ama hogaamiye kooxeedyadu ay buuxiyaan boosaskii ay baneeyeen ururka al-shabaab ama dhufaysyadii ay ka baxeen marka bal dooda ciddii la socotay ayaan jecelnahay inaan dhowr qofood ka siino
khadka koowaad hallow hallow assalaamu calaykum hallow assalaamu calaykum waa tahay qofkaasi khadka waa uu ku jiriyaa laakiin waxaan rajeyneynaa inaan samacadaha aanu iska maqli doono hallow waa tahay waan usoo laabanaynaa dadkan khadka telefonka haddii ilaha yiraahdo maadaama aan xoogaa ismaqli weynay xasan macalin go-aanka madaxweynaha isha ayaad soo marisay kulleyba waa tahay bal khadkii aan ku laabana hallow assalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magaca halkee naga soo wacaysaa magacaygu waa axmed cali muumin waxaan kaa soo wacayaa south africa gaar ahaan johannesburg haye axmed barnaamijka waa la socotaaye sideed u aragtaa qaabka al-shabaab ee uga baxday iyo haddii ka bixitaankeedu uu yahay mid shacbiga dan ay ugu jirto xaqiiqatan meesha waxaan isleeyahay horta dhamaan waa idin salaamay fikirtaan waxaan isleeyahay al-shabaabka bixitaankeeda wax weyn dawladda ma kusoo kordhinayso al-shabaab xaqiiqatan waa la ogyahay inta ay joogtay ma maqlin wax bililiqaa ma garatay markaan u leexana xataa dhinaca abaaraha ilaa hadda maanan maqlin dawladda wax kamid ayay lacag xataa ay u deeqday ummadaas marka waxaan waxaan isleenahay wax weyna ma kusoo kordhinayso dawladda naftirkeeda xataa waxaan taageersanahay fikirka ah in dawladda aysan waa tahay south africa ayuu axmed cali naga soo wacayay oo runtii khadka ayaa ka go-ay waa tahay su-aalaha markii ay dhowr noqdaan ayaan jeclahay inaan u gudbiyo xildhibaan xasan macalin iyo cumar suleymaan khadka xiga hallow assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaalla magacaaga halkaa naga soo wacayso walaal london a idinka soo wacaya waxaan rabaa inaan la hadlo oday cumar magacaaga horta sheeg maryan haye maryan maxaad oran lahayd marka waxaan dhihi lahaa al-shabaab waa la ogyahay wixii ay dadka ku haysay dadka kasoo barakacay oo xamar joogana kulligood waxay u badan yihiin dadkii meesha shabaab kasoo kacay marka wax la qarin karo maaha marka waxaan dhihi lahaa adeer cumar oo ilaahay ka baq ma aragtay wixii ummadda dan u ahna ka hadan waa tahay maryan aad baad umahadsan tahay khadka xiga ayaanu eegi doonaa insha allahu tacaala hallow assalaamu calaykum khadka xiga waa tahay laba qofood ayaanu soo wacday axmed cali iyo maryan labadaba waxaan u gudbin doonaa insha allahu tacaala marka ugu horeysa axmed cali way kala fikir duwan yihiin axmed iyo maryan axmed cali waad degeysanaysay wuxuu yiri arrimaha uu ka hadlay waxaa kamid ahayd in dawladdu aanay waxba soo kordhinaynin oo runtii xataa aysan waxba ugu deeqin dadka abaaraha iyo dhibaatada hayaan haye horta axmed marka ugu horeysa waan salaamayaa marka labaad ra'yigiisa sida uu cabiray waa sida asaga ila tahay laakiin waxaan rabaa inaan u sheego xukuumadda dhibaatada ay ku hayeen shabaab haddii ay ka dayn lahaayeen dhibaatada ay ku hayaan oo ku baxa maalin walbeeto mataqaanaa boqolaal kun dagaalkaas iyo colaadaas iyo waxaas hadday ka dayn lahaayeen waxaa loojika kuusoo bixi lahaa in loo jeedin lahaa in dadka wax loogu qabto marka wuxuu ogaan doonaa insha allahu tacaala marka nimankaas meesha ay ka baxaan dawladdu waxaa laga yaabaa awooddeeda inaysan kala qaybsamin ya oo meel ay social programmeskii dadku u baahnaayeen un ognahay waa shacabkeenii iyo amnigii in la sugo oo nimanka dhibaatada ku haaya dalka iyo dadka laga qabto waa laba priority oo muhiimadeedu inta iskale marka waxaa laga yaabaa inay dawladdu kusii jeeday nimankan dalka ka qabato oo horta meesha ka saarto midkan hadda aad sheegtay go-aankan laakiin dawladdu deeq ay abaaraha iyo dadka ugu tala gashay oo ay siisay waxaan maqlayay sheekh shariif oo shir jireed qabtay oo dhahaya 500 kun oo doolarka mareykanka ayaan ugu deeqnay dadka soo barakacay marka taas waa la socotay soo ma waxaan ku sheegaa relativity-ga wax la yiraahdo waxa weeye dawladdu waxa ay qabanayso
dowladuhu markay dagaal ku furayaan waa saas oo kaleeto expenditure-ka ama se kharashka la bixiyo wuxuu u badanayaa military-gan ku iri laakiin baaxadda dhibaatada hadda muuqata dad barakacay iyo kuwa abaar kusoo habsatay iyo dhibaatooyinka intaa la eg waxaa laga yaabaa dowladdu waxbay ka qabanaysaa 500 kun iyo intaa ka badan iyo intaa ka badan runtii shacabkuna waxbuu ka qabanayaa soomaalida laftiisu isu gurmanaya laakiin waxaan u sheegay su-aasha waxaan ka jawaabaya Axmed oo ahayd haddii dhibaatada nimankan ay wadaan waxaa la yidhi waxba ma soo kordhinaysa mogtay nimanka meesha ka baxaan waxaan u jeeda waxaan u sheegay wax badan ay soo kordhinayaan nimanka hadday meesha ka baxaan kharashkii ama expenditure kala ku bixi jiro waxaa loo soo jeedinaya socialka xagga bulshada loo soo jeedinaya oo awoodda military dhaqaalihiisa baa yaranaya marka ilaahay aan ka wada barino kuwaas inuu meesha Allah ka saaro waa tahay hay'ate gabar baba si toos ah Umar ilaahay ka cabso ku tiri ilaahay waan ka cabsanaya waa soomanahay waana tukadaa inta insha Allah ilaahay inuu iga aqbalaan rajeynaya laakiin gabadha iyadaaba cadaysay inay si qaldan wax u fahamsan tahay waxay tiri meeshii ay shabaabtu joogeen baa laga qaxay ee xamar waxaana qixiyay ma ay gabadhu hadday fakari lahayd waxay garan lahayd madfaca ay ku soo ridayaan Amisom baa dadka qixiyay ee xumaan ay ku sameeyeen shabaab may qixin marka walaashay waxaan u sheegayaa gabadha adeerka aanu ahay waxaan u sheegayaa inay adigu aad cadaysay in waxa dadka barakiciyay ay yihiin ciidamada Amisom iyo kuwa dawladda sheeganaya dhinaca ay ka dambaysa iyagana aan laga qixin dhinaca ka dambaysa dawladda ee xamarweyne dhinacaas iyo buur karoole iyo la yiraahdo lagama qixin waayo madfac lagu riday oo qixiya ma jiro waxa dadka qixiyay ee barakiciyay adeer waa madaafiicda Amisom laakiin mid ogow Umar hadda madfac miyaa dadka ku dhacaya madfac dadka kuma dhacayo hadda meelay ku soo meelay al-shabaab ka baxeen haddii aan al-shabaab madaafiicda ka dhex ridi lahayn ummadda dhexdeeda miyaa madfac soo dhici lahaa waxaa horta u baahan tahay wuxuu in la caqliyeeyo dad ajnabiya oo dalkaaga kusoo duulay iyo diintaadii oo aan rabin in shareecada islaamka waddanka looga dhaqmo hadday shacabka soo dhex galeen islaamka ah waxa la kuwa ay ku dhex joogaan ee ku wareegsan inay dibadda isaga saaraan markee waa cadow diintii iyo dalkiiba cadow ku ah inay xambaartaan oo inay dhex joogaan baaba xaaraan ah in madfac lagu ridona in la diido maba dhici kartaba cadow soo duulayaan wax lagu ridin caqli bini aadama oo fakeraya oo ku fakeri karaa ma jiro nimankaanina waxaa la rabay dadkan islaamka sheeganaya ay dhex degan yihiin inay dadkaasi ay ku kacaan oo barakiciyaan baa la rabay iyaga laftooda oo ay dhex degin waayo waa cadow islaam waay waa tahay qadka aan ka dhex galay habay yaraatee xasan wuxuu yiri walaalka xasan khayr Allah wuxuu leeyahay dawladdu hadii ay nimankan meesha jiri lahayn way dhulka waxbay ka qoonay aniguna waxaan leeyahay haday dawladdu aanay jiri lahayn kuwana uga khayr badnaan lahaa waayo shariica islaama oo la isla saxo oo la wada gamcaysto oo laga wada shaqeeyaa iman lahayd wax ka sareeyo adduunka ilaahay suu noo sheegay barwaaqo ka horeysa ma jirto حسن lacagtan dawladdu waa ay corruption bay ku sameysay oo muxuu ahaa hadda wuxuu yiri ummadda wax loogu qaban lahaa marka dawladdu 70 milyan ayaa la sheegay in ay macnaha corruption ku sameysay oo meel ay ka baxdaan la aqoonin qaar kamid ah xildhibaanadii baarlamaanka oo habeen dhaweed aan daawanayay oo maaragtay aan ka xasuusta xildhibaan ibbe iyo rag badan waxay yiraahdeen 70 milyan anaga ka soo shaqeyn jirnay dawladii hore iyo dawladan lacagtaasi waa la dhacay waxaana ku maqan tahay gacanta maamulka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya marka lacagtaas horta ma la socotaa lama socdo marka ma inaad ka jawaabto barabs lama socdo simple lacagtaasi way jirtaa Congress-ka Mareykanka yidhi lacagta weyn meel lagu sheegaa 75 milyan iyada kaliya ma aha how many millions oo ka horeeyay baa la dhiibay oo Dubai lacag ay dhibatay Kuwait lacag ay dhibatay waa la laayahay hadday dadkan dad islaam ahaan lahaayeen diinta ku dhaqmaayo lacagta lama xadeen marka waxa u dara kitaabkan iyo sunnada nimankan mufaajiriinta ku soo socda ee la leeyahay waa dawlad ay leeyihiin ha iska eriyeen waa shayada waata xasan waxaan jeclahay khadka telefonka waan u gudbi doonaa laakiin go'aankan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah muxuu ka dhignaa maanta waa akhrisay oo maanta ka soo baxay xafiiskiisa horta aad iyo aad ayaan madaxweynaha ugu hambalyeynaya go'aankan maantay
uu soo saaray xafiiskiisa oo ah inaanan loo ogolaanin goobaha ay baneeyeen al-shabaab nimanka meesha ka baxay inay kooxa kaleeto inay yimaadaan oo ay mataqaanaa meesha ku qaataan oo ay iyagu dowlad dadka isaga dhigaan waxayna ka dhigan tahay waxa weeye annaga laba dhibaataan u dhexaynaa mar walba dowladnimada kasoo horjeeday tan dambe oo cumar uu ka hadlayo oo uu diinta ku magacaabayo waa noo dambeysay haye waa diin la abuse gareeyay ma ogtahay haye hore waxaa u horreysay ma ogtahay qabiil la abuse gareeyaa noo horreeyey oo dalkii kala goosgoostay oo meelo kala degay oo rag qoryo ku qaateen oo woor loo dhisay la baxeen haye qoladan hadday meesha ka baxaan dowladdu ay meesha ay jirto waxa weeye nabadii baa soo noqonaysa laakiin waxaa la diidaya waxa weeye qolooyinkii hore jiri jiray oo kaleeto ama kuwa kale cusub oo arkay meeshan bannaan oo vacuumka ay arkay inay meesha buuxiyaan oo iyagu hub ay qaataan oo ay meeshii fariistaan oo iyagu mataqaanaa dhibaato kale soo kordhiyaan go-aankan marka waa go-aan muwafaq ah oo mataqaanaa waqtigiisii ku yimid waana mid u baahan in la taageero macnaha ma waxaa laga cararayaa hadalkii qaramada midoobay ay sheegtay in qaar kamid a hogaamiye kooxeedyadii aada moodid hadda inay dib isu abaabulayaan oo ay doonayaan inay maaragtay ciidamo geystaan sida ama kaaraan ama bakaaraha ama meelo kale taas baad moodaa inuu u jeedo miya madaxweynuhu macnaha dadka soomaalida ah waayihii ugu dambeysay dhaqan baa ka soo galay dhaqankaas wuxuu ahaa ninku inuu mataqaanaa is abaabulo oo beel ahaan isu abaabulo oo wiilal isu keeno oo meel dego oo mataqaanaa dalkii dowladu diido marka qolooyinkaas aan loo ogolaanin hadday maadaama ay meesha ka baxeen marka labadan qolo waxay ummadda dhex geliyeen waxa la yidhahdo vicious cycle haye kuwan warlordska ah ahaan jiray ama hadda kuwa raba inay noqdaan oo waxa weeye waa kuwii abuuray conditionskan ay shabaabka ay kusoo baxeen okay waaye shabaabka laftigiisu haye waxa uu ku xadgudbay diintii kuwanuna waxay ku xadgudbeen qabiilku waxaan ula jeedaa qabiilku iska caadi dadka Soomaalida qabaayil ay u dhasheen waa iska families wax dhibaato ma lahayn waa isku aqoonsan jiray waa isku guursan jiray waa ku wada noolaan jiray haye laakiin waa la abuse gareeyay Soomaa haye si xun baa loo isticmaalay okay diintii umarada sidoo ka sheekaynayo kooxaasna soo labisatay oo mataqaana rabta ay ku xadgudubtay oo mataqaana magaciisii ku ciyaartay marka labada qolo inaan u dhaxayna ma doonayno waa fahmay waqtiga ayaa ciriir nagu aatay qad baan haysanaa haye Umar inta badan runtii dawladana waa dhalishay shabaabna waa dhaliilaya waa dhalishay maxaa dadkii dan u ah dadka dan waxa u ah inay ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii rasuulka ay taageeraan ee niman gaala u soo duulay inaan dalka lagaga dhaqan gelin shariica islaama iyo constitution holy constitution looga dhaqmin u soo duulay cidda raacda waa tii ilaahay noo sheegay لا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا لا تتولوا قوما يا أيها الذين لا تتولوا النصارى يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء واتها ومن يتولى منهم فإنه منهم وإذا كم هذا تاجرتان دين لعنت أي وطن ما كان قارض أي أنا أقول أنا كسي ست سكن ما هو ست سكن ربع سؤال كنا كويتي إن al-shabaab ma haysata macnaha dadku waxay ra'yihiin inay ogaadaan haddii ay ogaan lahaayeen al-shabaab meesha u socoto ma dowladnimo u socotaa ma meel kale u socotaa xabadan un iska socotaa maxaa loo gudbi karaa bal soo koob xabadan u socota waa hal shay oo easy loo gudbi karaa haye very easy way laakiin ma la rabaa in la sameeyo dowladda ku dhaqanto shariicada islaamka furiso dowladdu kuwa sheeganaya ha ku dhawaaqeen shariicada islaamka hana fuliyeen marka ay fuliyaan this and this will come together no difference with that xasan dowladda soo shariicada islaamka ma dhici karto markii waxa la weeyaan aniga meel badan baa laga wareystay waxa la cadeeyay international community waxa ay deysay dowladdu inay rabin shariicada islaamka international community ay cadeysay haye xasan waxaan rabaa arrinta ku saabsan shariicada islaamka maanta uu ku celceliyay Umar شريعة إسلامكو وحوي دولة شريعة على جربها نوع ضد كان شريعة على جربها قفك شخصي كا ليفل كا individual كا شريعة الدولة على جربها وحوي ضد كإني أمني هي النبض
iyo mataqaana public ama social services inay u samayso sida dalalka adduunyada looga noolyahay dad nabada iyo dal nabada oo aan xadgudub lahayn oo aan dhibaato lahayn oo dadku ay mataqaana qofkii cibaadeysanay cibaadeysto qofkii ganacsanaya uu ganacsado xukunka iyo sharcigu uu mataqaana uu sareeyo dadku aysan fawdo ku nooleen sida aan ku noolnahay oo kaleeto inaysan ku nooleen kaasa dawladda laga rabaa shariica ahaan marka la yiraahdo waxa waajibka dawladdu waa kaasa marka sharciga la fiirinayo qofka waxa laga rabaa dawladdu ma dukato mesela laakiin qofka waxa laga rabaa inuu dukado qofka waxa laga rabaa Umar yani waxa laga rabaa adiga waxa inaan soono waajibkaas aan ugu ah laakiin dawladdu ma soonto dawladdu marka waajibaadka ay leedahay waxa weey waa ka duwan yahay midka laga rabo midkaan laga rabo marka dawladda sida xataa culimada islaamka ay sheegayaan waa xiraasa weyn inaad ka ilaaliso ay waardiyeysa waay marka kaasna waa loo socdaa waa tahay aadaan ku mahadcelinayaa xasan macalin wasiiru dawlihi hore ee dawladda kumeel gaarka ahna runtii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kumeel gaarka ee Soomaaliya sidoo kale waxaa igala qayb qaataan aad ugu mahadcelinayaa Cumar Suleymaan Cali Shalaqo oo isaguna ah siyaasi u badan dhinaca urur diimeedyada oo runtii wax badan ka sheega warbaahintana ka hadla isla markaana hore u ahaan jiray ugana tirsanaan jiray ururkii Xisbul Islaam ee al-shabaab ay kala wareegtay qaybo badan oo ka tirsan goobihii ay maamulayeen haddana markii dambe ku biiray al-shabaab walow hadda aan u malaynayo inuusan hadda al-shabaab la shaqeynin barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan si aad ugu mahadcelinayaa intiina soo wacday oo naga qayb qaadatay iyo farsamayaqaanka barnaamijka waa Saciid xaamid oo isaguna runtii aad noo kaalmeynayay maalmahana ku maqnaa wadanka Djibouti oo hadda dib u soo laabtay insha Allah taala tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad u mahadsantahay.